الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت wanaagsan qiimaha badan leh waxaanu maanta ku sugannahay magaala beereedda Arabsiyo oo nu doonaynay inaan muuqaal yar oo qurux badan ku qabanno aniga asxaabteedu insha Allah marka xoogaa yar oo xaraabaada baan insha Allah iska yar tuuran doonaa su'aalo yar oo faniya baa meesha ka dhici doona haddii la dhaxdo idinkana waxaan rajaynayaa inaad comments-ka hadhow ay soo daadin doontaan insha Allah haddaad ku cusubtiin channel-kana dee subscribe ka dhac ka sii insha Allah halka yar cas waad naga cadeyn doontaan biidnillah imikana su'aalahaynu geli doonaa waxa garabkayga midig taagan saaxiibkay xariir baan su'aal yar kaga nixin doonaa ee aamusa idinku soo dhaw xariir aad baad u mahadsantahay saaxiib Cabdirashiid waanan waxa weeyaan jawi qurux badan iyo Arabsiyo ma sha Allah kulli waa beerahan maalintii ugu horreysay imaado oo farxad gaar ah bay tahay bal su'aashaana insha Allah waxaan rajaynayaa inaan ka gudbi doono wala soo diinaysa markii dhaweedaynu xariir soo soconay darawalka si waalan badu canaananaysa ma beerahan bad ku soo cararisay ma waxa weeyaan kulli taraaga wad ogtahay maanta wadankeena sida loogu dhinto taraaga dhibka ka jira markaan waxa lahaa taxadir xoogaa yaa xariir su'aal baa halkan lagu hayaa su'aashaas waxay ka oranaysaa waxaad sheegtaa qofkii ugu horeeyay ee aan bini aadan ahayn adduunka soo mara qofkii ugu horeeyay ee aan bini aadan ahayn adduunka soo mara oo bini aadan ahayn adduunka hadana yimaada wadana qofa sidee marka qof bini aadan aanu ku ahayn tibuniyo taasoo halka sabaq la dadina waa way qofkii ugu horeeyay hadana aan ibni aadan ahayn aanu adduunkan bini aadan xawiye aadan baa lagu abuuray laakiin bini aadam kale oo magaranaysa adduunka soo maro hadana aan waardi halkaan